waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo kulanka asluub iyo cashirka shortcut theory oo aan ku sharxi jirnay afka Soomaaliya ee ka faa'iideysi wacan. Sida aad la socotaan, su'aalihii ugu dambeeyay waxay noo joogeen baarmaha labaad isla markaasina su'aasha 45aad. Haddana waxaan kasii wadi doonaa su'aasha ku xigta ee 46aad ee la socod wanaagsan. Su'aasha 46aad waxay ku leedahay hur kan du minska transfer brukning budin bil. Sidee gaarigaaga u yareyn kartaa inuu markaasi bransigiisa ama shidaalka inta badan uu isticmaalo u yaraado inta marka aad gaariga wadaysid. Waa su'aal ku saabsan gaariga informationkiisa. Marka inta badan haddii aadan gaariga aadan isticmaaleyna qaybta luftiga oo kuntuqunka la dhaho oo ah kuleelka oo kale IC oo kale inta badan qofka waxaa fiican inuu markaasi iska dameeyo haddii uunan isticmaaleynin, sababtoo ah inta badan wuxuu ku shaqeeyaa gaas badan ayuu markaasi qaadanayaa, wax walbana maaragtay wuxuu ku shaqeynayaa matoorka marka uu daaran yahay. Marka jawaabtu waa yo stänger off luftkuntuqunka när det inte behövs. Marka aad u baahneen ama kuleel ama markaasi qabow uusan jirin uu iska xirayaa qofka si uusan maaragtay uunan forbrukning badan maaragtay ugu sameyn ama wax badan uu gaariga ay gaas ugu qaadanin. Marka hadda jawaabtana tus dhahno waa aada. Su'aasha 47aad si aad u jeedaan waxaad aragtaa sawirkaas oo ah markaasi laba calaamad oo riiga ah. Calaamadda marka micnaheedu marka magaalada tahay waxa waaye inta badan waa mamnuuc inuu qofka maaragtay dhankaas aan soo galo soo baaso ilaa ay wadada dhankaas ay ka furanto. Maxaa la weydiiyay marka vilken avstånd måste du ha minst vara mellan den hilldraga leonkan a ujeedaan furdunka si uu markaasi u joogsado wadada minst maxaa waxa waa cadadka macnaha laga rabo mitirka intee waay. Marka inta badan haddii gaarigu dhacdo inuu istaago intee ayuu istaagi karaa, marka intuu soo u jiri karaa kanta leonka macnaha oo ah midaan maaragtay leonka meequu muxuu u jiri karaa waa su'aasha la weydiiyay. Marka minst waa inuu ahaado ugu yaraan 3 mitir oo ah si ay gawaarida kale ee markaas wada u baahan ee u dhaafaan, sababtoo gaari kale lagu tusiyay gaarigana u jeedaa marka waxa waaye waa inuu intaasi u jiraa marka uu istaagayo kale. Okay, su'aasha 48 waa su'aal sawir ah. Boolis waa ninkani calaamada booliska u jeedaan gacanta ayuu taagay midna kor ayuu dhigay. Wayna bar boolistaking marka maxay tahay calaamadan boolistaking maxay inoo sheegaysaa waa su'aasha la weydiiyay. Marka iyo iska istaan waaye motonda for sure, sababtoo ah motondahan wax lama weydiina gaarigan ayaa laga soo horjeestay. Haddii lacala oo gacanta saan u dhigi lahaa oo kale oo dhinaca kale maaragtay oo balca ka dhigi lahaa oo kale marka waa booda bilar. Su'aal noocaas oo kale waa noo imaan doontaa oo labada gaari motondaha gaariga dhankaas ka socday kan kalena ayna istaagaan, laakiin hadda adiga kaliya un baa lagu istaajiyay. Jawaabtu waa ka hadda aragtaan iyo iska istaan oo motonda for sure. Su'aasha 48aad sidoo kale waa sawir. Du ska försöka rakt fram alla köra rakt fram hore ayaa u socon doontaa. Hur ska du göra den här situationen xaaladana u jeedo maxaa sameyn doontaa aad isleeba u soo lite af gaasar soo moyli si aad marka afgaaska aad maaragtay u sii deyso maxay tahay xaaladda maxaa sameyn, sababtoo ah gaduud waaye calaamado maaragtay badan baa noo muuqdo, basas baa meesha istaagsan. Maxay tahay waxyaabaha laga doonayo inaan sameyno maxaa waa marka iyo iska motor bromsa oo fashilka undvika distana. Motor bromsa marka muxuu yahay waxaa laga wadaa gaaska ama xawaari aad gaariga kusoo waday gaaska ka kacaysa gaariga isaga soo dhimaayo. Idmeens macnaha waxa waaye waxa isku diyaarinaysaa haddii aad u baahato inaad markaasi istaagto. fashilka undvika distana haddii aad macnaha u baahnayn inaad istaagto yani isha waa iska sii soconaysa hadda u baahatan si aad u istaagi karto maadaama gaariga xawaarihiisa uu soo yaraanayo. Okay, motor bromsa mar walba uu fiican yahay intuu hal mar bromsa uu qaban lahaa qofka, sababtoo baawaradu isku dhow yihiin inuu markaasi uu gaariga xawaarihiisa soo dhimo si uu markaasi uu gaariga u kontroli karo. Su'aasha 50aad waxaa lagu leeyahay n sinus qaadad macnaha waxa waa qof oo indhaha markaasi camoola ama indhaha waxba arkeynin ayaa marka wuxuu haystaa qofkaasi usha marka vit cap ul macnaha ama baakora oo cad buu wataa wado markaasi uu markaasi uu caadi loo maro ayuu wuxuu isku dayayaa marka inuu markaasi qofkaasi camoolaha ah waxaa lagu aqoonsan inta badan baakorta kuwa ay wataan oo han striker carbon marka sned framod marka wuxuu baakortiisa ayuu marka wuxuu ku toosinayaa yani qaf leexar rabo kale ayuu iska dhigayaa sned ahaan buu u taagayaa. Maxay tahay waxyaabaha u diragarey weyso oo qofkan camoolaha ama maaragtay dhaawaca ah oo inuu sameeyo dhici karto mar haddii aad qofka inuu camoole oo kale ugu jiro covid uu to kala baakorta oo aad arkaysid
inuu nuuxjinayo inta badan meesha ay u leexanayaan ayay baakoorta hadba ayay u jeediyaan. marka maxay tahay qofku waxa uu ka fikirayo waxyaaba uu ka fikirayo maxaa qofkaasi wuxuu rabaa go over gutter inuu wado markaasi uu ku jeedinayo baakoorta inuu maro. marka waa ujeedaa qofkaasi waxaa waaye waa inaad marka ka taxadirtaa oo aad markaasi gaariga joojisaa inta uu ka marayo qofkaasi maadaama uu camule waxba arkin laakiin usha ayuu qof dadka ugu baaqaa. su-aasha 51 waa laba calaamad oo isku mid ah laakiin maxay ku kala duwan yihiin? fiiri hadda sawir kaliya fiirinaynaa. calaamadani waa cagaar, wadada way inoo furan tahay haddaa toos u socoto iyo maaragtay haddii aad leexanaysaba. sidoo kale calaamadan waa b waa leexasho wakan. laakiin calaamadan maxaa la yirahdaa? calaamadan waxaa la yirahdaa biil ayaa la yirahdaa. it means waa biil oo macnaha calaamada falaarta ayayna siinaysaa. it means qofka marka uu leexanayo dhankan u leexanayo ma u baahno inuu markaasi istaago sababtoo gawaaridaas kale way ka xirantaa wadada. labada calaamad isku wada mid laakiin waa calaha siriska lagu kala duway oo ah tan biil waa tan waa mid garoon caadi ku siinaysa oo ah nal caadi ay shidaysaa. fiiri marka duiska Svengative Venister waxa uu leexan doontaa dhankaaga bidixda. haye kan moto on the floor ha garoon use some do know nafsu tuqoon moto hadayasha marka waxa laga hadlayaa kan gaariga gaduudan iyo gaariga cadka miyay jiraan marka aniga aan sii soconay isla markaas iyaguna inay ay sii socon karaan macnaha xaalad ah miyaa jirto. marka labada xaad maadaama lagu sharaxay aad fahantay waxa marka xaaladan soo tuqoon aaga waaye sababtoo ah marka dhaxda istaagto kan way u furantaa wadada. it means waa inaad meesha istaagtaa laakiin kan hadday u furanta xataa mar walba adiga wadada xaq u leh oo sii soconay. markaan ma u baahnid hadday marka u furan tahay waa inaad hore ka shooreysa gaariga waa. okay su-aasha 52 ivilkan soo tuqoona ulika risk stop for ungefähr maxay tahay xaaladda ugu daran ee inta badan dhalinyarada ay ma aragtay ee shilalka ama waxyaabaha riskiga ee macnaha uu ku dhaco kale maxay tahay? waxa waaye naar domar ungdom sambas qeyr biilan. it means waliba dhalinyarada laga hadlayaa markay dad yar yihiin dhalinyaro gaari u saaran tahay ayay marka inta badan tahay marka ay riskiga ama maaragtay dhibaatada ay dhacdo sababtoo ah waxay isku sameeyaan group trick wax la dhaho oo saameyn ay isku yeelanayaan. su-aasha 53 waxaa lagu leeyahay ma kan du forkorta katalatunus uppvärmningstid när du ska starta bilen en kall dag på ett detta sättet att minska utsläppen. haddii uu ma aragtay maalin adiga ma aragtay aad gaarigaaga daarayso oo maalin markaasi ay tahay kall dag maalin markaasi qabow ku jiro maxay tahay qaabka ugu wanaagsan oo aad macnaha u yareyn karto utsläppka gaaska ma aragtay oo gaariga sii deynayo sidaad u yareyn karto maxay tahay? maxaa sameynaysaa gaariga qashin badan inuu sii deeyo lama rabo. waa maalin ma aragtay aad u qabow ah oo winter ah u baarman gaariga tidka inuu ku laadan waqti ayuu qaadanayo. maxaa sameynaysaa marka? waxa ugu fudud waxa ugu fiican genom att använda motorvärmare inaa gaariga daartid oo xoogaa ma aragtay sugtid ilaa uu ka kulaado kabacdina gaari si caadi u socoto. haddii kala dadka gaari maartana ma aragtay waa sheelreynaya micnaheedu waa gaari qashin badan buu sii deynaya macnaha waxaasna waxaa loo diidayaa ma aragtay bey'adii waxyaas uma fiican. marka si aad u yareyso qashinka waxyaabaha gaariga uu sii deynayo waxaas aan isticmaalaysaa waxay tahay motor varmara gaariga inuu daartid xoogaa sugtid ilaa uu ka kulaanayo adigoo markaas gaas waxba aasiinin. siisfar waa jawaabta waa aada ujeedaan. okay sawir ayaa noo muuqdo. Svengative Venister waxa u leexan doontaa dhankaaga bidixda ah. sidoo kale fotogan ama qofkan gabadhaan dharka cadaanka wadatane waxay rabtaa inay wadada markaasi marto adoo garoon use haysataa macnaha wadada ku furan tahay iyaduna u furan tahay. maxaa marka waxaan oo sharciga xaaladani kale ka shaqeynayo. sharciga xaaladan ka shaqeynayo marka waxa waa qasab oo ah yo måste lämna fotogana företräda även om hon inte hunnit lämna i avgångsställa eller refugen macnaha eragan kulle ma garanaa sabto qore laakiin waa avgångsställa inay markaas ilaa ay ka marto waa inaad sugtaa ilaa ay ka baas garaysaa meesha. marka waa must dhaxda ayuu qofka istaagayaa kadib markay marto ayuu hore usii soconayaa. su-aashaani waa sawir iyadana waxbay inooga digaysaa. haye faburdu yora nardu nar masedan dadta farmeerkeena marka calaamadan u dhawaad maxay tahay waxyaabaha sameeyay kaliya lagu weydiiyay dee waa iska fahmaysaa waxa waa sanka fartan haye maadaama wax noogu digayso horreegta blinkan mudsiidan avagan often normaat waa inaad marka kantiga ma arkin oo aad yani u dhawaataa siidanka ah sida aadan ewl u socon jirin oo u taxadirto haddii la calaamaha lagu soo baxo inaad markaasi istaagto. waa su-aasha waa aada mida saxda ah. okay isla calaamad kale wax kaloo digayso waaye waxaa lagu leeyahay baarmarkeerka calaamadani wax micnaha oo loola jeedo miyaa markii xaaladan oo kale aad aragto
ay macnaha la micno tahay marka wadadu ay haltback leg tahay. wax micnaha oo noo sheegayso miyaa jira calaamadan haddii haltback leg ay tahay wadadu sambirraxasha ay leedahay yo sababtoo ah waa haltback kan blosset sidvin yora after for salad macnaha wadadu waxa waaye waa wado markaasi markay meelaha lagu dhajiyo kale inta badan haddii ay tahay xilliga winterka waxa imaan karto in aad markaasi sambirraxasho ay wadadu markaasi leedahay sambirraxasho isla markaasina ay dabeeshu ku dhacdo marka dhulku barafku u yahay kale marka haltback leg inta badan waxa imaan karto inuu markaasi yahay mid aad markaasi aad la kulmi karto inay wadadu sambirraxasho leedahay. su-aasha marka waa sida 57 waxa waa isla calaamadaha badan maanta sawirada ah waxaana la weydiiyay wadadan highway-gan u joogno motorwagen finish waxaa lagu leeyahay meeshaan u jeedaan Tfogon for Bliss Zwager Mellan Koshbana meeshaas ayaa loo jeeda oo ah Koshbana meel ayaa ka furan inta badan mararka qaar highway markuu qof ku socdo marka vilkan domahar foreigner for använda den son yani opening meeshaan furan kuwa isticmaali kara ama gawaarida isticmaali kara yaa waay oo u leh inay macnaha isticmaalaan oo xaq u leh inay isticmaalaan yaa waay marka waa inta badan waa gawaarida inta badan oo fogors furdumka la dhaho oo ka shaqeeya wadooyinka ayaa meesha loogu talagalay iyo kuwa marka xaafadaha kala ka shaqeeya iyo wadada si ay ugu shaqeeyaan ayaa isticmaali karo ma loogu talagalin taxi last bill loogu talagalin kaliya gawaarida wadooyinka markaas dhiso oo ayaa mari kara meesha inay macnaha ay ka maaragtay ka leexdaan oo dagaari kale looma ogola meenaheeda waay. okay su-aasha 58 vid en insurance-ka flera bedömna göras lagu dhahay haye insurance macnaha marka la qofku lusmay wax badan baa marka qiimeyn lagu sameeyaa wax badan ayaa qiimeyn lagu sameeyaa vilkan bedömna ofta svaret att göra macnaha bedömna ofta göra macnaha dadka marka insurance gawaarida ay sameynayaan inta badan gawaaride ugu adag in marka la qiimeeyo marka ay sameynayaan baasitaan marka uu gaariga yani ii sheegay uu adagta gaari markay baasayaan marka waxa waaye gaari oo markaasi ka imaanayo backmount forere kaasoo markaasi qorsheenayo en insurance ya forere planeer insurance marka haddii uu gaari gadaashaada uu macnaha go-aansado oo kale aadan ogeyn wadada caadi iska tago oo kale inta badan hadduu gaari kala gadaal tartiib u socdo oo kale isla markii uu isagana qorsheenay adina ogeyn waa kuwa uu adag inuu qofka bidumni uu ku sameeyo marka uu gaariga u wadayo kuwa waxaa iska jira si ay ku socdaan adag iyagoo blink wax walba wax shidanin sharciga raacin isla markii degdegsan oo maaragtay gadaashaada marka waxay ka sameeyaan baastaan mana ogid marka marar qaar marka meelaha uu adag waa shilaq ka dhacan oo kale. su-aasha 59aad vilkan alternative example defensive shoring ereygan hore usoo marna waa isiga waxa waaye defensive waa maxaa defend ay ka imaado oo ah yani difaac waa laakiin defensive waxaa la wadaa qofka yani example fees macnaha waxa waaye shorinka markaasi ah shorinka taxadirka badan oo ma aragtay qofka yani aad u taxadir badan kuwa waay marka narrative laga hadlayo kuwa waxa waaye marka qofka mar walba u diyaarsan ya yoo ay helatidan bread oo reageerayso tuqun sam u busar qofka shorinka defensive ka macnaha example waxa la dhihi karaa waxa waaye qof xaalad walba u diyaar garaysan oo wax walba dhici karo oo imaanaya macnaha qof u diyaar ah oo ka hortagi karo it means waa qof markaasi qorsheynaya shorinkiisa haddii wadadu ay yar tahay xawaaro fiican maaragtay xawaaro yar ku soconayo afstone badan haysto mar walba u diyaarsan xaalad walba markaasi imaan karto. su-aasha 60aad waa laba sawir sidoo kale isku mid ah labada sawir marka maxay noo sheegayaan fiiri wadadu laba meel bay kala baxaysaa luuq bay galaysaa marka it means waxa waaye waa wado aan si fiican u muuqanin laakiin xaafadoo kale waa duska folie vägen master vägen lagu leeyahay harul fanakis motortrafik for den slut vägen wadooyin laba wado soo dhamaanayo marka it means waxa waaye hooga regal baa marka ka shaqeynaya wadada hooga regal ayaa ka shaqeynaya labada wado maadaama ay yihiin wadada xaafada ku yaalo oo qilti vice split ama wadlad ay la lahayn it means yo waxa waaye yo boda caution labada wadooda marka macnaha waxa waaye waa wado aan vice split mu traffic tan markaasi ay iyaga ka leeyihiin oo ah hooga regal sharciga ayaa markaasi ka shaqeynaya. su-aasha 61aad sidee hur kan du veta att bilen ABS broms fungerar om det ska när du gör en kraftig bromsing sidee ku ogaanaysaa in baabuurkaaga ABS bromsiga la dhahay ku xiran automatic inta badan gaari uu joojiyo sidee ku ogaanaysaa inuu markaasi sidee u tijaabinaysaa inuu markaasi shaqeynayo way su-aasha sidee ku ogaanaysaa inuu markaasi shaqeynayo waxaa ku ogaanaysaa waxa waaye waxaad maqlaysaa yani cod marka aad markaasi oo gaariga uu yani inuu shaqeynayo ABS bromsigiisa
sidoo kale waxaa dareemaysaa gariir oo markaasi bromsdalanka inuu gaariga bromsigiisa uu gariirayo. sidaas ayaa marka qofka uu ku garan karaa inuu yahay mid markaasi shaqeynayo. okay, su-aasha 62 du bör hålla tillräckligt långt avstånd till bilen framför flera qaal vilken det viktigaste miljöklass macnaha waxaa lagu leeyahay mar walba waxaa jirto marka aad gaariga aad ka haysato long avstone macnaha inay gaariga ay ku ilaalida xadad ay ku dhexeeyaan gawaarida ka horeyso oo kale waxyaabo fara badan oo loo sababay ayaa jirto. marka laakiin victigasta oo milyosta macnaha midda bini'aadan u fiican oo tayo waay ayaana la weydiiyey oo marka qofka inuu macnaha ka fikiro waxa waaye marka aada waayo oo ah yo kan undvika onödiga stopp och onödiga skon. waxaa mar walba ka taxdiraysaa iskana ilaalinaysaa leexashooyinka loo baahan sidoo kale inaad joogsato mararka qaar aad u baahan sababtoo adoo iska socda inaad joogsatid oo haddana maaragtay dhaqaaqdid macnaha waa onödiga macnaha stop waay. laakiin mar walbo waa ka taxdiraysaa marshada aad ku socoto haddii aad leexanaysana waqti fiican ayaa markaasi qorsheynaysaa. su-aasha 63 waxaa lagu leeyahay baabuurkaaga ayaa markaasi soo dhaqday bilan harfood motor fail gaarigaaga ayaa waxaa helay motor fail macnaa motorka ay cilad ku imaadatay waxaana ku qasbanaatay inaad joogsato meel markaasi madow ah oo habeen ah oo nal marka uu ka maqan yahay gato blisning waxa la dhaho nalalka ku dhegan wadooyinka. nalkee ayaa shidanaysa alagu leeyahay utforfansplaker macnaha markii laga soo tago midkaan maarata fareejayaasha si loo arka gaariga gadaashiisa inuu markaas gaariga istaagsan yahay waxa waaye barkiero yuska shidanaysa gaariga markaasi gaduud buushada ayaa gadaashiisa wala la arkaya inuu markaasi taagan yahay. su-aasha 64 waxaa lagu leeyahay hur beverkas föraren sin om han eller hon alkoholbeverkas sidee u saameynaysaa haddii darawalka uu markaasi uu soo cabay qamri badan ama maarata uu sarqaansan yahay aragtidiisa sidee abay u saameynaysaa ya aragtidiisa waxay u saameynaysaa waxa waaye su-aasha jawaabteeda bida waaye oo ah andhahe c waaye sin scarban markuu isku yimid sin scarban miniskar oo sida blismole sababtoo ah aragtidiisa aragga macnaha baabuurka wax arkaayo way yaraanaysaa sidoo kalena aragtida wax arkaayo way yaraanaysaa araggiisa caadigana sinfeltadkana blismoler macnaha qofka wuxuu indhihii ka yaraanaya sababtoo qofkani waa qof sarqaan ah wax badan si fiican muu arkaayo waa wax taxadirkiisana waa yaraanaya waayo jawaabta waa c. su-aasha 65 maxay tahay waxyaabaha your first hand on en bonuska sitaba backvent eller bilbarnstool eller på en belteskudde eller barnstool macnaha waxay ka hadlaysaa waxa way su-aashan ilmaha yaryar waxa ugu horeeyo oo laga taxadirayo marka ay haddii fariisanayaan caruurta gaariga loogu talagalay ama midka lagu dheereeyo ama midka beltstoolka ku xiran maxay tahay waxyaabaha ugu horeeyo laga fikirayo waa culays maaha older maaha waxaa laga fikiraya lengthiga ayaa yani xukumo cunuga hadduu gadaal fariisanayo hadduu ku fariisanayo haddii loo dheereynayo inta badan. okay, su-aashan 66 qaf baan ujeednaa wadadan adiga waa kana meeshana waa overganstelle macnaha waa meel dadku ay markaasi overganstelle waxa waaye meel ay wadada iska goyso waa dadku ay maraan waxaa lagu leeyahay haru fansbilid mood fotogan idan hasbuna macnaha qafkani fansbilid bigu ka leeyahay marka qofka marka waa maadaama ay tahay meel la joogsanayo way iska caddahay waa he iska caddahay it means waxa waaye yo waaye labada nay waa ka tagay yo waaye after some overganstellaha and say some ufakadna traffic signal select mar walbo waa mid markaasi yani isheeg laga taxadirayo qofka lugeeyaha maadaama uu ufakadna traffic signal meel oo macnaha ku dhigeen calaamada signaalka dadka hageysay mar walbana xaquuqda waxaa iskale sikalistaha iyo dadka markaasi lugeeyaha. okay, su-aasha 67 waxaa lagu leeyahay fordo enomshorning of screen metalio vidnesare samti samduha motan traffic waxaa lagu leeyahay waxa waaye omshoring mayaa sameyn kartaa wadadu macnaha iyadoo meesha ka baxsanay maaragtay metalionka ah samtiga samduha motan traffic adoo markaasi wadadu gaariga ay ku socoto dhan kale gaariga kasoo socdaan metalionka macnaha oo wadada u dhexeyso omshoring miyaa ku sameyn kartaa adoo dhaafaya macnaha calaamada metalionka nay waaye sababtoo ah ens amoton fodun telefisor bafaan macnaha baabuurada kale oo wadada kale kasoo socda bisa loogu talagalay adina wadada ayaa loogu talagalay marka lama ogol in wadada kale uu qofka ku xadgudbo. su-aasha 68 waxaa lagu leeyahay wagen du kör har en part chaufför värderar krant värderar riktningen och det finns ingen väg för du kör sträck för ett bagnad där skit
qitana qiimt waa su-aashatii hadda waxoogaa lakala wareejin waaye waa isla wado kale oo ma aragtay oo aad ku socoto shaal shoor faragti leh isla markaasina aadan wax kale wado kale oo gawaari kale kusoo socda oodan lahayn shoor oo muku samayn kartaa adoo markaasi waxba markaasi aad background bis aad arkaysa hal qayb kaliya aad ku soconayso wax ma samayn kartaa waa su-aasha waa maya waaye sababtoo ah waxaa kasoo bixi kara baabuurka hadduu kasoo galaya ma ogid because wadada hal wada kaliya oo iska socoto mar walba marka qofka inuu wadadiisa saxda uu haysto weeye su-aasha 69 Du vill öva upp din förmåga och manövrera bilen helt verkligen. Vad är säkerhet att öva? Waxaa rabtaa inaad kordhiso xirfadnimadaada darawalnimo aad ku taran garayso ama ma aragtay practice badan ku samaysa gaariga sidoo ma aragtay u soconayo meel halta vaagleega oo markay wado markaasi caadi iska ah oo qalalan maxay tahay waxyaabaha meesha ugu fiican ama saakirista oo qofka ku tababaran karo waa halkee marka saas u fiiriso villa umrood iyo barkeen plus waxaas dhan maaha waa po traffic evening plus meelaha lagu talagalay in lagu tababarto dadku marka ay gaarigu baranayaan waa ka su-aasha toddobaatanaad su-aasha toddobaatanaad waxaa weeye naar maso du vinterteg din bushinbil goormay ayaa isticmaalaysaa lugaha loogu talagalay xilliga winterka ah marka su-aasha inta badan isbedeshaa hadba waxaa xilliga u xiran tahay laakiin inta badan qofku waa inuu fahmaa goormay waddankani baraf imaadaan goormay ayuu markaasi samar u yahay bilaha ayuu qofka ka shidaal qaadanaya marka su-aashan waxay leedahay hadda jawaabta waa la kala gedi waxbaa la isku wareejiyey laakiin midda saxda oo hadda baarmahan akhrinayno waa 1 December ilaa 31 March mararka qaar waxaa dhici karta inuu abril xataa baraf yaalo laakiin waa mid mar walba waaqiga iyo maaragtay bey'ada ku xiran iyo alternative-ka ama jawaabaha lagu siiyey midda ugu dhow waa middan marka oo ah 1 December ilaa 31 xilligaas la isticmaali karo winter teg halkaas ayay ku dhamaadeen su-aalihii maanta insha Allah inta aan kulmi doono baarmahiisa kale waxaan idin rajeynayaa insha Allah nabad iyo caafimaad haddii ay jiraan dad ku guda jiro barashada shortcut insha Allah la wadaag aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah.